بسم الله الرحمن الرحيم داوديال maanta waxaa idin hayaa talaabooyinka ugu fudud ee looga hortagi karo cudurka coronavirus ilaa iyo dhowr qodob ayaan soo qaadan doonaa sida ay u kala muhiimsan yihiin ayaan u kala hormari doonaa haddii aan qodobka ugu horeeyaan soo qaato koronuhu waa virus waaweyn waxaana lagu qiyaasaa inay gaarayaan ilaa iyo 400 ilaa 500 mikro labo viruskan koronuhu ma hawada laakiin waxa uu ku dhagaa walxaha sida darteed iska ilaali inaad taabato shayaasha saddex marka viruska uu gaadho oogada sare ee shay ama bir waxa uu ku sii noolaan karaa muddo gaaraysa ilaa 12 saacadood fadlan gacmahaaga ku dhaq biyo ama waliba alcohol afar marka uu gaadho oogada dharkaaga viruska koronuhu waxa uu ku sii dul noolaan karaa ilaa 9 saacadood sidaa darteed dharka oo aad maydho ama cadceedda aad dhigto waad uga badbaadi kartaa khatarta coronavirus shan coronavirus marka uu soo gaadho gacmahaaga wuxuu ku sii dul noolaan karaa ilaa 10 daqiiqo fadlan gacmahaaga ku meer jeermis dile lix marka heerkulku uu gaaro 26 digrii ilaa 27 digrii viruska corona ma noolaan karo maxaa yeelay uma dul qaadan karo qorraxda sidaas awgeed isticmaal biyo kulul diiran leendana leh toddobo ku loolqashada biyaha diiran oo milix leh waxay ka badbaadinaysaa inay disho coronavirus ama viruska yar ee ku jira afkaaga si uusan u gudbin sababadaada xusuusnow markasta coronavirus waxa ka weyn ayadaha quraanka kariimka ah haddii ay fariintan ku soo gaartay fadlan la wadaag asxaabtaada si ay uga badbaadaan khatarta coronavirus